dabcan qalabkan ama mobilkan wuxuu ka mid yahay waxyaabo bini'aadanka uu sameeyay casrigan cusub ee saameynta ugu badan nolosheena ku yeeshay waxyaabo badan oo faa'iido noo soo kordhiyay nolosheedana isbedel weyn ku sameeyay qaab nololeedkeena iyo waxyaabo badan wanaag badan iyo horumar badan oo keenay mashaakil badan oo nolosheena ku soo kordhiyay marka maanta waxaan ka hadlaynaa sida ugu macquulsan ee aad uga faa'iideysan kartid waxa fiican oo mobilkan ah iyo sida aad uga fogaan kartid dhibaatooyinka ee uu nolosheena ku soo kordhiyay marka soo dhawaada balada smartphone-ka nolosheena maanta aad ay ugu tiirsantahay waxyaabo badan aan ka faa'iideysanaa dad aan kula xiriirnaa lacag aan ku dirsanaa faa'iidooyin badan aan ku helnaa wararkaan kula soconaa waxyaabo badan nolosheena wax u taray waxbarasho waxyaabo badan aan ka faa'iidnaa marka mana laga go'i karo mana loo go'i karo marka sidee ugu macquulsan xikmaddu iyo aqligu uu ku dhisan yahay ee aan uga faa'iideysan karnaa mobilka smartphone-ka dabcan waxyaabo badan ayaan daraasiyay dhinacyo badan ayaan ka eegay marka waxaan idin wadaagayaa talaabooyin iyo talooyin kooban oo aan isleeyahay nafteeda iyo naftiinaba waxbay idin taraysaa talaabada koowaad waxay tahay mobilkaaga waxaad ka xiraysaa notification-ka application-ada mobilkaaga ku jira dhan waxay leeyihiin application walba wuxuu leeyahay option qayb laga doorto inay notification waxa la lahaa waxyaabo ku soo xasuusinaya ama ku soo dhacay inaad ka xirto wax walba notification ah application-ada kugu jira oo dhan si ay u noqoto hadhow waqtiga ah uga tala gashay inaad ka daba gasho ee aad fiiriso talada labaad waxay tahay social media marka tusaale ugu yar aan ku soo qaado Facebook wuxuu leeyahay level aad u sareeyo oo xog ah Facebook groups-ka page-ka account-ada kulligooda dhan markaad page gasho aad like gareyso waxa ku soo dhacay xogtiisa qof marka Facebook ku darsato xogtiisa ku soo dhacaysa group-yada kulligooda marka inaad unfollow dhahdo inaad la socoshada aad ka gooyso ama ka yareyso wax walbo socdo laba faa'iido ay ku taraysaa faa'iidada koowaad waxay tahay dad aad ku qanacsan tahay xogtooda macluumaadkooda iyo la socoshooda wax ku taray ayaad mutaabicinaysaa labo mar walba dadka aad mutaabicinaysa ay yar yihiin xogta tirada badan ee maanta dhan aad daba soconayso soo yaraanayaan taas oo keenaysa inaad mobilka aad wixii ugu muhiimsan aad la socotay akhrisay aad dareemaysid inaad isaga baxdo ama meel iska dhigto talada saddexaad waxay tahay mobilkaaga isku day inaad ka takhalusto application-ada social media intooda badan inaad ka takhalusto ama tirtirto isku day dabcan dad ku dhahayo waa Instagram waa u baahanahay TikTok waa u baahanahay Twitter waa u baahanahay Facebook waa u baahanahay kulli waa u baahan tahay haddii dhankaas laga fiiriyo laakiin haddaad yareyn karto aad ay u fiican tahay hadda laba application ayaa ugu badan Soomaaliya hadda problemka ugu badan ku haysto oo ugu mashquulka badan waa Facebook iyo TikTok ayaa ugu badan sidaas darteeda haddaad wareysato saaxiibtaada qof adiga isla socotaan ee Facebook iska tirtiray ee tijaabadaas soo maray wareyso kadibna waxaa ogaanaysaa qofku inta badan ani shakhsiyan dadkan wareyso waxay ku leeyihiin waxaan ku noolahay nolol peaceful ama nabadan ku noolahay waxa kaloo xal ahaan u sameyn kartaa laga maarmi karaa ka soo qaad application oo iska tirtiray Facebook sideen ku gali karaa laba qaab oo gali karaa mobilka wuxuu leeyahay browser ama Google Chrome ay halkaas aad ka galaysaa dabcan process dheer waaye taas waxay kugu dhalinaysaa inaad dantaada yar ka dhamaysto isaga baxdo sidoo kale hadduu xafiiska computer ku yaalo inaad Facebook ku xirto inaad markaad computerka dul fariisato inaad gasho waxa u baahan ka akhrisato markaad computerkaas ka damiso ama ka tagtana aad iska deyso uu Facebook ka maqan yahay aad laba shay sameysay oo ah wixiina waad la socotaa marka waqti gaaban aad la socota sidoo kalena jadwalkaaga caadiga iyo space-kaaga nolol u baahan inuu ku banaanaaday mashquulkii badan uu ka qaadanayna kuma haysanayo talada afraad waxay tahay waqti u xadid adeegsigaaga social media dabcan su'aashaas ama arintaas waa arin aad noogu adag marka waxa u baahan tahay inaad waqtigaada u qaybisid tusaale inaad dhahdo subaxdii hal saac oo ogolahay ilaa duurkii casarkii waxa ogolahay hal saac oo kale caawa hal saac oo kale yaani inaad waqti u cayintid kadib markaad qaabkaas u qaybiso waxaad dareemaysaa in waqti badan uu ku sii haraayo oo waxyaabo badan oo noloshaada wax u taray aad u qabanaysid mid kalena nolosha social media lagu ma xirin balse laakiin waxay tahay wax la qabsaday nolosha maanta mashaakilaadka haysta ay kamid tahay talada shanaad waxay tahay
mobilkaaga hala gelin ama ha ku isticmaalin qolkaaga jiifka ah. taasi waxaan ka wadaa sidaan ognahay mobilka shaqada lagu isticmaalaa, gaariga lagu isticmaalaa, iyadoo la socdo la isticmaalaa, meel walba lagu isticmaalaa. marka haddaan isku tarbiyeyno ama isbarno in mobilkeena qolkeena aan jiifka ama markaa seexanayno ama sariirtaada mobilka hala tegin, sababtay haddaad la tagto waa meeshii ugu dambeysay ee mobil isticmaalkiisa aan ka joogno. taasna inteena badan waa sameynaa, laakiin taa isku tarbiyeyso inaad ay ku kala baxsanaadaan waqtigaad seexasho rabtid iyo waqtiga kale. mid lixaad waxay tahay hal maalin isku day inaad mobilkaaga smartphone-ka isticmaalin tijaabo ahaan. sababta waxaad baranaysaa in noloshaada aad maareyn kartid, aad wadan kartid mobil la'aan. ilaan nolosheena oo dhan waxaan noqonayba mobilkaaga hadduu dablaan ka yahay uu kaa damo yaraan 2 saac jaajar weyso, waxaad dareemaysaa walwal iyo walbahaar iyo inay wax ka maqan yihiin, in noloshaada cilad ay ka taagan tahay adoon wax dhib qabin. marka marar qaar way fiican tahay in maalin kamid ah u qorsheyno. tusaale inaan dhaho maalin jimca oo kale, jimca hebel mobilkii smartphone-ka oo iska daminaya meel iska dhigaya, waxaan isticmaalaya mobilka yariiska ah wixii koola mobilkan ku dhameysanaya, lacagtaada mobilkaas ay kugu jirtaa, qaraabadu ka salaami kartaa, qofka ku baahanna uu ka soo wici karaa. taasina wax oo cilad ay kugu soo kordhinaysa ma laha, waxayna ku baraysaa inaad mobilka markaa u baahan tahay aad ka maarmi karto. talada toddobaad aan idin la wadaagayo waxay tahay mobilkaaga wax walba ha u isticmaalin. maxaan ka wadaa mobilkaaga ka soo qaad koolka markaad iska Facebook wax iska fiirfiirinaysid, markaad xog baaraysid, markaad buug akhrinaysid, waxyaabahaas dhan mobilka u isticmaalin. waxaan u leeyahay markaad cashar akhrisanaysid, markaad lagu soo diro research ama wax aad baaraysid oo internetka wax ugu baahan tahay, markaad buug akhrinaysid, markaad wax samaysanaysid, waxa samaysaa computer samayso, waxaaga ku samayso ama hawshaada ku qabso. mobilkana hawlo kale gaar ah u isticmaal. sababtan u leeyahay waxay tahay horta inaad kala saarto faa'iido ku leedahay waxay tahay waxa sii kordhaya heerkaaga wax soo saarka ama wax qabadkaaga. haddaad computerkaaga dul fadhiso waxaad raadsanaysid Google ha ahaato ama wax kale ama software-ka wax ku qoranaysid ama wax diyaarsanaysid, waxa culeyska saaraysaa inaad ka faa'iideysto waxaad qorqorato. laakiin mobilka haddaad isticmaalaysid ciladu kugu keeni karo waxaa ka mid ah adoo isticmaalayo waxaa raadsana ayaa notification ama message ama messenger ama fariin lagu soo diraa, waa sii gelay, waa ku sii mashquule, waxaad dhexda uga tagaysaa hawshii aad rabtay inaad qabsato. iyo wax walba oo adiga oo mobilkaas ka weyn oo hawlo kale ku gaar ah aysan ahayn entertainment iyo baashaal ahayn ee aad qabsan rabto, computer ku qabso si ay ku kala baxsanaadaan, adiga laftirkaaga aad u kala dareento muhiimada ay ku kala leeyihiin. talada sideedaad aan kusoo khatimayo waxay tahay filim ayaan idin la wadaagayaa xogtiisa. filim la yiraahdo Social Dilemma ayaa jiro ee laga diyaariyay dadka social media ikhtiraacisa iska leh ee barnaamijyada kala duwan Instagram, Facebook kuligooda ayaa wax laga diyaariyay film muuqaal laga diyaariyay, waxayna ka hadlayaan dadkii hawsha sameeyay ee bani'aadamku soo saaray ee maanta anaga dhan aan ku wada mashquulsanahay oo waqtigan ugu badan aan gelinayno, ayagoo ka hadlayo applicationada ay sameeyeen in noloshooda iyo waxay ka aaminsan yihiin iyo wax sida saxda ee nolosha loo maareeyo iyo in nolosha social media la'aantiisa la wadi karo iyo afkaar badan ku saabsan. haddaad waqti u haysaan barnaamijkaas ama muuqaalkaas daawada, waxaana la dhahaa Social Dilemma ayaa la dhahaa. wax badan aaminsanahay waxyaabahan aan ka soo hadlay waxyaabo badan oo ka dheeriyaba inaad ka faa'iido doontaan, faham fiican idinka siinaysa nolosha iyo social media iyo waxyaabahaas ku saabsan, ayagana khibraadkooda ay meesha ku soo bandhigayaan. barnaamijkan halkaan soo noogu egyahay, waxaan idin leeyahay mac salaama, is arag dambo oo xiiso leh.